khatar ayuu u bareerayaa mase hubo inuu soo noqon doono. Qoyskooda ayaa ka sugaya wixii ay cuni lahaayeen. Laamo iyo xargo la isku xirxiray oo loo qaabeeyey sidii shabagii ayuu ku soo dabaa kalluunka dhex muquuranaya webiga Shabeelle, isagoo dabaal ku quusaya gunta hoose ee webiga oo ah meel cabsi leh uuna ku badan yahay yaxaas dad iyo dunya cun ah oo ay aad uga feejigan yihiin dadka deegaanku. maya ilaah baa ka cabsanaya, yaxaaska ma cabsadaani. ilaahay baan ku kalsoon yahay, manaawiyaas galaan qur'aan ayaa akhrisadaa, qur'aan ayaan oo soo baxaa aniga. waa ka yaxaas yaa inoo dadku cunaya aniga waa og yahay, laakiin ilaah baa iga horjooga baalkaasiyati ma laisku halee karo. kidis ayuu kugu imaanayaa, xeliyo ku qaadayana halka maroo ku qabanaya leewaa, inta kale dib damba laguma arkaayo. Qoyskani waxay ku qasban yihiin maalin walba inay yimaadaan halkan oo ah daanta webiga, isla markaana shabaagtooda dhigtaan oo ay kala soo baxaan malayga ama kalluunka, kaasi oo ay ku dabanayaan agab iyaga gaar u ah oo ka samaysan dhirta halkan ka baxda, maadaama aysan heli karin ama aysan awoodin shabaag ama qalab kale oo suuro gelin kara inay waqti yar iyo xaalad fudud ku soo dabtaan malayga ay doonayaan si ay noloshooda u maareeyaan. duruufaha ku gadaaman qoyskiisa ayaa ku kallifaya in isagoon qaan gaarin uu halis walba u babac dhigo si uu wax u taro qoyskiisa oo saboolnimadu ay haraysay. malaa unuga arsaakha ilaah noo dhigay, uwiyan baharkan ayaa kasoo bixinaa. malaa nuuc ayaa ku dhaco, nusiib ay ku dhacdaa, malaamadooha nuucaan oo kale noo ku dhacaa. labada nooc miya? iyo nuucaan kale oo ku dhacaa wax badan way. gaagaabkan noo ku dhacaa. magaciiga gaabkan hagoon gaalahay. hagoonka muxuu fiican yahay? والله ilma yara maraq loo dhigay, dadka weyn way cunaan. Maxamed Yare oo aysan u muuqan halista uu yaxaaska kala kulmi karo ayaa shabaga geeya marinka uu tuhunsan yahay in malayga laga heli karo, kaasi oo si joogto ah dabinkooda ugu soo dhaca marka ay soo jiidato carafta haraadiga cuntooyinka iyo caloosha ariga oo ay halkan ku soo guraan. 12 saac waa la gelinaa oo habeen oo murqub ay tahay, 12 saac subaxnimana waa la bixiyaa. maankaalka oo la la siinayo qashinka maqaayad bariis kareereebka ayaa oo soo qaadnaa unug iyo caloosha oo kawaanka la keeno loo ridaa sidaas ayuu galaa. dibna waa soo urinaa sidaas ayuu galaa. hooyadii oo ah xirfadle aad u firfircoon ayaa carruurteeda ku ababinaysa shaqadan oo ay ka baratay saygeeda, waana qof garanaysa noocyada, xilliyada iyo meelaha ugu habboon ee kalluun laga heli karo. والله unuka abkooyin ayaana baray, unuka ma ka siin. usiya ayaa adowgiis ayuu ka bartay, adowgiis wax ayuu ka bartay oo ilmihiisana baraya. unukan wixii dhalnaa ayaa sii barayna. inkastoo lacag aan badnayn ay ka soo gasho iibka malayga, haddana habeenada qaar qadoodi ayay ku seexdaan. sababtuna waa inaysan haysan doonyo iyo shabaag ama agab kale oo casri ah oo ay ku soo daban karaan kalluunka. wala beeso markoo hada meel bi baxtaanka ayaa malay aad wasakh ee la keenaa. markoo unug gooni ahaan oo socod xaal ayuu nooleeyahay $1 iyo $2 laga bixiyaa. intoo ka socdane 10 ku loo joogaa. hooyadii ana oo la shaqeeyo adooween laami ay iska saaray xamaal waa marno shaqeeyo marno waa nolosheena waxa ku tirsan tahay noloshada malayga. shaqo kale malayna unug. shaqo la'aan, agab yari iyo inaysan faham badan ka haysan khataraha xayawaanka ku nool webiga ayaa ku kallifta inuu si maalinle ah naftiisa ugu biimeeyo biyaha webiga oo kulmiyey khayraad ku cuni kara iyo kuwa aad quudan karto. ma kaniinta oo farsamo ani gacantii barat maahine wax kale oo gata ma haasto, bees awood oo gatana ma haastaan. laakiin way jiraan, laakiin beesadooda ma cishtaan. unuga ayaa jikadeena ku shuban wixii aa u sii akeel. jikada ayaa ku shubanaa unug. kaaseetii kan kaas ayaa ka adag, laakiin ku sii meel gaar leeyahay. kuwaaseet laakiin manaa nolosiyaa unuga waa iska rabnaa. manaa unugan dad oo garabna sii mahaasano oo nol kaalmee. unugan aad kaniita ayaa iska jaajaafanayna meeoo ka jawa afiilasaan uu xirnaa xirig uu xirnaa. usoo bir ee minaa haasaleen fiil ama ku xirleen. muku xirleen oo kaniita dina ku xirna dan ayaa noo kalifaysa unug. maxaa kaloo sameeynaa bees wax ku gadana ma haasano. Maxamed Muuse Tarsan,
warbaahinta qaranka magaalada Balcad gobolka Shabeellaha Dhexe.